jirin loo sheegayna inay waxa jira ay ogaato intaas weeye aad baad u mahadsantihiin kelimada aan doonayo intaa kadib inta taariikhda inaad idin idhaahdo dadka reer muqdisho waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazakum allahu khayran caasimad inuu muqdisho ilaahay ka dhigay waa nicmo ilaahay idin siiyey ummaddii soomaaliyeed inaad hooyo u noqotaan caasimaddu waa hooyadii dalka waay ummaddii oo dhan uruurinaysa waa meel la wada leeyahay oo meel ummaddu kusoo wada hiranayso caasimad inuu ilaahay ka dhigay magaalada muqdisho waa qadar ilaahay idinka dadka deegaanka u tahayna waa nicmo ilaahay idinla soo doonto nicmadaasna shukrigeedu waxa weeye inaad uruurisaan ummaddii soomaaliyeed inaad ummaddii soomaaliyeed hooyo u noqotaan in ruux kastoo soomaaliya meeluu ka soo jeeda markuu muqdisho joogo uu dareemo inuu dalkiisii joogo inuu caasimadiisii joogo inaan laga xigin ninna inaan loogu cagajuglaynin nin walba ehelkiisii iyo dalkiisii iyo caasimadiisii inuu dareemo taasi waxay keenaysaa in ummaddu usoo hilowdo caasimadii inay ummaddu usoo noqoto caasimadii dowladdii baa joogta caasimadii dalka in qaabka aanu u fikirno waana sidaad u fikiraysaan la soo celiyo ummaddii loo soo celiyo arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiim ay tahay waana idin farayaa waadna farsoontihiin waadna ku baraarugsantihiin laakiin ha la xoojiyo wayaan ujeedadeedu caasimaddu way ka duwan tahay dalka intiisa kale ilaahayna tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo qodobka labaad wuxuu yahay caasimaddu waxay saldhig u tahay dowladdii dowladdana haddii aydan la garab istaagin sistamku dowladdu ma dhismo dowladdu ashkaas kuraas ku fadhida maaha dowladdu waa system iyo nidaam waay mushkilada inaa haysatana waxa way waxaynu ilaahay hadda kala saari la'nahay system iyo nidaam iyo ninka ku fadhiya ninka ku fadhiya maanta mid baa ku fadhiya berrina mid baa imaan doona shalayna mid baa jooga systemku laakiin waa daa'im waay systemku waa joogaa systemka ummaddii baa intifacsanaysa shalay mid baa joogay waa ka tegay maanta mid baa jooga waa ka tegi doonaa laakiin waxa ay ka tegayaan dhaxalka ah ummadda iskale marka dhaxalka inaan wada kobcinno oo dhaxalka wada dhisno oo dhaxalka wada garab istaagno oo aan loo burburinin oo loogu kicin oo loo qasin calashaan hebel baa ku fadhiya oo ree hebel ah ama hebel oo necbahay baa ku fadhiya hebelkaasi macno weyn ma samaynayo laakiin systemka muhim marka systemka dhaxalka ah alla dhiso ana la wada garab istaago rabo inaan intaa kadib kusii dheeraado kelimadeeda ugu dambaysa waxaan leeyahay culimada soomaaliyeed meel kastay joogto sida la sheegay culimadu waa inay noqoto meeshii ummaddu ku dayan lahay midnimada lagaga dayan lahay walaalnimada lagaga dayan lahay wada jir kaga dayan lahay akhlaaqda wanaagsan lagaga dayan lahay ummadda in loo turo oo loo naxariisto lagaga naseexadii waajibkee saarnayd inay gutaan halkan markaan imid madaxdana waa la kulmay hadda dowladda hoggaamisa labadii madaxweyne horena waan la kulmay madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan gooni baan ula kulmay waxaanu la kulmay sheekh cali baa ila joogay sheekh bashiir baa ila joogay waxaanu la kulmayna waxay ahayd inay dhahdo dalka u tura dalku mucaarado iyo hadal iyo ma xamili karo marka nasiixaana saaran inaan hagaajinaana saaran inaan ummadda u noqono qudwo lagu daydo ayaana saaran laba arimood culimadu inay kala saarto waay siday culimadii ugu horreysayba sheegeen midda koowaadi waxa weeyaan markaad adigu madrasadaada iyo masaajidkaaga iyo xertaada iyo inta ku raacsan wax u akrinayso waxaad diin ahaan ugu qanacsan tahay u akri laakiin markay timaado maslaxada guud iyo danta guud ee ummadda ka dhaxaysa ninna kama lihid ummaddaa nagala dhaxaysa annagana qayb baan ka nahay ummadda qarannimadeeda wada jirkeeda nabadgelyadeeda is-ilaalinteeda sulxigeeda marka ummadda soo gaadho oo masaalixda guud ay timaado waa inaad ka timaado madrasadaadii khaaska ahayd qanacsanaantaadii khaaska ahayd taa gooni ha ku ahaato tanna ummadda la wadaag taana markay gooni ku ahaato waxaad sheegayso diin diinaan ugu qanacsan tahay sheeg aad baad u mahadsantihin jacfar waxaan ku gabagabaynayaa aniga ka shaksi ahaan aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta
waana runtii waxa weeye waa idinka aqbalay soo dhaweyntii iyo xafladan iyo kahorba raallina waan ka ahay haba yaraatee nin u dudsanna malihi muxaadaraa lagu diiday kuma dudsa mana sheeganayo magaalada muqdisho ayaa lagugu takooray ma qabo mana qabo inaad raalligeli isiisaan sababtu waxa weeye wax dembi ood iga gasheen ood iga ma jiro markaan jawaabayana waxaa dhi muqdisho oo magaaladayda war haba yaraatee cuqdad aan la noqonayana ma jirto insha allahu tacaala hadday duruuftu ii saamaxdana waan soo noqon oo waan idinla joogaa insha allahu tacaala sheekha muxuu ahay walaalaha qaarkood hadalkooda wadaadada kala qabta uu ka muuqda wadaadada kala qabta ma aha masaladu wadaadada kala qabta ma aha masaladu waxa weeye wadaad baa khaldamay ninka khaldamayna waa in la yidhahdo waad khaldantay saasay meesha ku hagaagtaa annagu intaan doonanay khalad maana abuurin mushkilo maana abuurin ujeedadeyduna ma aha inaan muxaadaro dhigo markaan meesha imaanay laakiin bulshada qaar ka mid ay culimada iga codsaday dhowr beli nala joog khudbada jumcadana noo jeedi muxuu ahay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan qaatay anigoo magaalada nairobi hawlo badan kule waan saa u qaatay hadday mushkila abuurantayna go-aan waxaan qaatay intii hataa iska dhaaf dhiig ku daateen ruux soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku geli lahaa sababtay ayada dhahla kanso ayadoo weliba dawladdu ku madax adag tahay anaa diiday oo ku idhi maya ma dhacayso xataa madaxweynahaya waxaan ku qanciyey qiso waxaan u keenay cuthmaan ibni cafaan khaliifatu rasuuli llahi sal alay wasalam ayaa waxaa loogu yimid duulaan niman kacdoona duulaan ugu yimid xafiiskiisii bay isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nabiga sal alay slam la joogay baa dabcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaaca cuthmaan wuxuu ku yidhi ruux muslima intii sababteeda dhiig ugu daadan lahaa u banneeyay farax ka qaada ha dagaalamin way ka baxeen saxaabadii nimankii way usoo galeen cuthmaan isagoo qur-aan akrinayay ku dileen qisadaasaan xataa u sheegay dawladdan ku idhi maadaama khaliifkii muslimiinta dhiiggiisii in la dilo u oggolaaday calashaani muslimiintu ha badbaadeen muxaadaro laga maarmi karo inay muslimiinta ku soo gaadho sax maaha sidaasaan marka ku baajinay sidaas daraaddeed wadaadka iyo wixii la fikrada iyagana waxba uma qabo soomaaliya oo dhanna waa saamax dad fara badan oo la lugooyey oo aflagaaday wax badan sameeyeyna ayaguna waa cag idinkuna waad mahadsantihi haddii uun munaasabadii timaado oo laysu yimaadana masaa'il wixii culimada dhex yaala in laga wada hadlay ku fiicanta wixii laysla afgaran waayana nin walba uu tiisa si nabadgelya ku wato wixii laysla afgartana si walaalnimo loogu wada socdo isaguna waa cafi intii gaf gashayna waa cafi dhammaanteedna allah ina wada cafiyo aadna waa u mahadsantihi jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu